kasoo noqday xajka gabi ahaanba wuu isbedelay. ilaahay wuxuu ogolaan doonaa qayb inaga inaga mid ah in maqlaan kelmadahan waanan maqli doonaa gal sidaa daraadeed waxaan u arkaa aayadahan kuwa ku weyn qalbigayga, waayo waxaan hiigsanayo in rajaynayo ayaa ah inaan ka maqlo kelmadahaas ilaahay, caruurtayda iyo waalidiintayduba inay sidoo kale maqlaan insha Allah. Allah ayaa u adkeeya iimaanka oo ku arsaaq jannooyinka u sareeya sidaad ugu arsaaqday ku hanuunida quraanka ku hanuun. شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. muusigiista caan ah oo ilaahay ku soo hadeeyay ayada gaagaaban oo aan maalin kasta akhrino markaasay noloshiisa oo dhan isbedeshay, wuxuuna farxad kula nool yahay quraanka. waa raxiim jaan oon kula kulmay London, wuxuuna igu marti qaaday aqalkiisa. magacaygu waa raxiim jaan, waxaan ku dhashay halkan London oo dhabtii ka fog halkan 100 mitir. waxaan noloshayda dhan ku qaatay London. aabahay wuxuu kasoo tagay India oo halkan yimid sanadkii 1940. qoyskiisuna asal ahaan waxay kasoo jeedaan Xigaas dhulka Carabta. hooyaday waa reer Ireland. hooyaday iyo aabahay waxay ku kulmeen halkan London. hooyaday waxay haysatay diinta Kaatooliga, sidaa darteed waxaan kusoo kornay qoys diin ka xor ah, mana raacsanayn diintan ama taas. runtiina muu jirin diin xadidan oon raacsanahay. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. حالتك ورا؟ الحمد لله. أدو سيدتاي؟ الحمد لله. aad baad u mahadsantahay. Allah khayr ha ku siiyo. fadlan fadhiiso. Sheekh Raxiim, ma sha Allah, gurigaagu aad buu qurux badan yahay. Jazakallah. caruurtuna ma sha Allah iyaga ka qurux badan. alla waxaan baryayaa inuu ku xafido martiqaadkaaga iyo sharaftaada. Sheekh Raxiim, ma sha Allah, imsa caruur ayaad leedahay? waxaan ahay 42 jir imika. waxaan xaasla ahay 18 sano ama 19 sano in ku dhow. waxaan leeyahay 5 caruur ah walxamdulillah. waxa uu ahaa Raxiim nin jecel muusikada, xataa markii uu dhameeyay waxbarashadiisa waxa uu si toos ah uga shaqeeyay muusikada iyadoo ay ehelkiisu diidan yihiin. waxa uu bilaabay mashruuc yar oo muusika ah ilaa uu gaaray oo uu la shaqeeyay shirkadaha ugu caansan caalamka. waxaan la shaqeeyay mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan caalamka taasoo ah Motown Records. Motown Records waxaan ka bilaabay dhabtii inaan dad heer sare ah barto. tusaale ahaan dadkan la kulmi jiray iyo kuwaan la shaqeyn jiray waxaa ka mid ahaa Steve Wonder oo ah fanaaniinta caalamka ugu waaweyn.
waxaan ka mid ahaa kooxdii qabanqaabisay xafladda dhalashada ee Steve Wonder ee 48 jirkiisii ee waliba soo saaray albanka lagu magacaabo Jungle Fever. sidoo kale waxaan ka shaqeeyay muusikada filimaan fara badan sida filimka Terminator 2. sidoo kale waxaan ka shaqeeyay shaqooyin fara badan oo gaar ahaantay u qabtay oo soo hoysay guulo laguna iibsaday qiimayaasha u sareeya sida platinumka, diamondka iyo CD-yada ugu qaalisan. wuxuu ku soo barbaaray Raxiim aqal aan diinta muhiimad siin. markii aan weydiiyay diintiisii islaamka ka hor wuxuu yiri sida tan: wax culays ahna laguma saari jirin inaan raacno diin. sidaas oo kale dhamaantiin waan baadiyeysnayn. aniga iyo walaalka iyo walaashay waxaan ka fogeyn islaamka. markaan weynaaday ee mas'uul noqday naftayda ma aanan raacin wax diin ah. ma aanan ahayn Christian. hooyaday waxay ahayd Christian laakiin anigu ma ahayn sideeda oo kale. kuma jirin islaamnimo noloshayda. dhab ahaantiina diinteedu wax kale ma ahayn ilaa muusik maahine. diinteedu waxay ahayd muusikada. waxa wax laga xumaada ah. taasi waa xaaladda dad fara badan oo ka mid ah dhalinyarta muslimka maanta. waxay ku imtixaanan yihiin heesaha iyo gitaarka. taasina waa xaaladda cidda caabuda hawadiisa ilaahay ka sokow. ilaahayna waxa uu leeyahay afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawaa wal'iyadu billah. marka aan fiiriyo waxaan soo dhaafay waxay igu hogaamisay si tartiib ah islaamka. Raxiim, goorma ayaa uu bilaamay in islaamku ku saaqo qalbigaaga? xaggayga markaan ka hadlo waxa u sabab ahaa xiriirka aan la leeyahay ina adeerka iyo saaxiibkay. waxaanan isugu dhaweyn sida labada farood isugu dhow yihiin sida walaalo ilaa 18 jir ah. 18 jirkaygii fasaxyada xagaaga waan isla qaadan jirnay. xagaaba waxaan dhiganay qorshe aan ku qaadanayno fasaxa. kadibna wuu ila soo hadlay. wuxuu yiri akhbaar xun baan ku hayaa. waxaan yiri waa maxay? wuxuu yiri inima raaci karo fasaxa. waxaan yiri maya waayo. wuxuu yiri waxaan tagayaa xajka. waxaan yiri yaa ilaahi. wuxuu yiri waan ogahay laakiin waan ka qasbanahay. waxaan yiri hooyada baan kala hadlay. waxaan la xiriiray hooyadii. waxaan yiri edo waan ku baryaa kaxayn. waxay tiri maya wuu tagayaa. wuxuu gaaray 18 jir waa inuu xajaa. waxaan yiri maya wax walba waan diyaarinay. waxay tiri maya wuu tagayaa. wuxuu yiri waxaan sameyn karaa ma jiro waan ka xumahay. aniga iyo asxaabteedu waxaan tagnay fasaxa isaguna wuxuu tagay xajka. markuu ka soo noqday xajka gabi ahaanba wuu isbedelay. gabi ahaanba wuxuu bilaabay inuu garhka bixiyo. namana raaci jirin. wuxuu iska daayay inuu noo raaco meelahan ku kulmi jirnay, meelaha muusikada iyo waxyaabihii waxa la mid ah. wuxuu bilaabay inuu diinta ku dhaqmo laakiin markastoon la kulmo wuxuu ahaa mid raali ah oo faraxsan. mid cagsi ku ah wuxuu Raxiim dareemayay. inkastoo haysta lacag fara badan Raxiim, laakiin wuxuu ku noolaa nolol aad u xun oo adag. noloshuna waa sidaas. alle kama dhigin mid u fiican dadka lacagta leh, laakiin wuxuu ka dhigay mid u fiican ciddii camal wanaagsan samaysa. xaaladaydu waxay isku bedelaysay si tartiib mustaqbalkayga waxaa ku bilaabmay dhibaatooyin. xiriiradaydu waxay bilaabeen inay mushkilad ka muuqato. xataa qalbigayga dareenkiisu wuu isbedelay. markaasay xumaatay ka shaqayntaydii muusika. ma xumaanin sidaan adduunyada u arko. dhinaca adduunyada xaalad fiican baan ku jiray laakiin qalbigayga gudihiisa ayaan ka dareemayay niyad jab iyo madnaan ilaa aan gaadhay marxalad aan u maleeyay inaan waalan rabo. gurigaygaan joogay waxaan ku dhawaaday inaan waasho. waxaan xasuustaa inaan ka fikiray ilaahay. waxaanan la galay heshiis. waqtigaasna waxaan ahaa mid ku dhacay dembiyo fara badan. waxaan xasuustaa inaan idhi anoo ilaahay la hadlaya haddaad dhibaatada iga badbaadiso aan hadda dhexda kaga jiro waxaan kaga soo noqon doonaa dembiyada oo dhan 3 usbuuc gudahood. sidaasay ahayd ballankan alle la galay. isla maalintaa waxaan idhi waxaan furayaa quraanka waanan akhrinayaa. markii aan furay quraanka ee bilaabay inaan akhriyo waxaad moodaa inay mucjiso tahay. aayadan macnaheeda Ingiriis ku akhriyay. culays kasta waxaa ka dambeeya fudayd. fa inna maca al-usri يسرى إن مع العسر يسرى. حقيقة waxay ii ahayd mucjiso. aad baan u wareersanaa waqtiga. maanan garanayn meel aan tago iyo meel aan ku baxsado. waxaan dareemayay inaan waalanayo. waxa ugu dambeeyeen ku fikiri karo waqtigaas diin bay ahayd. waqtigaas uma doonayn diin ahaan waayo waxaan jeclaa adduunyada. waxaad moodaa aayadahaas inaa aniga la ii qoray
oon qof kaleba loo qorin maan garanayn waqtiga ilaahay iyo wax ka mid ah diinta laakiin kitaabkan sibuu u garanayay waxaan u baahnaa marxaladaas iyo waqtigaas waxay ahayd mucjiso